qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan subaxnimo uu soo saaray maxamed cabdiraxmaan sheekh aniga oo xasan sheekh cumar ayaan idinla socodsiin doona dhagaystayaal waxaanse ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo cabdulqaadir yuusuf cali. mahadsanid xasan. madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay ku soo rogtay baaritaan la xidhiira sida uu u maamulay dukumentiyada sirta ah kadib markii uu ka tagay aqalka cad. warbaahinta maraykanka ayaa ku warantay inuu wajahayo dacwado ay ka mid yihiin carqaladayn iyo shirqool. trump ayaa ku andacoonaya inuusan wax dembi ah lahayn, wuxuuna sheegay in maalinta talaadada ah looga yeeray maxkamadda. wasiirada midowda yurub ayaa ansixiyey in dib u habayn ballaaran lagu sameeyo siyaasadaha socdaalka ee ururka. waxaa siyaasadahaasi ka mid ah in si cadaalad ah loo qaybiyo soo galootiga iyo qaxootiga si loo dhimo tirooyinka ay aqbalaan wadamada mediteraneanka. wariyaasha ayaa sheegaya in isbedeladan ay qayb ka ahaayeen cabsi ay madaxda midowda yurub ka qabeen in khalalaasaha cusub ee soo galootiga uu faraha ka baxo. boqolaal dabdamiyaal caalami ah ayaa loo dirayaa dalkaasi kanada si ay gacan uga geystaan wax ka qabashada dabka weyn ee kaymaha, kaas oo qiiq sun ah ku dhex sii daayay inta badan xeebaha bariga ee waqooyiga amerika. malaayiin qof ayaa loogu baaqay inay xirtaan afxir wanaagsan oo tayo leh. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digaysa in daacuunka uu ku faafo deegaanada Ukraine ee uu saameeyey biyo-xireenka Kakhovka ee qarxay. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay inay isku dayayaan inay taageeraan adeega caafimaadka ee dalkaasi si looga hortago inuu daacuunka faafo. ugu dambeyntiina madaxweyne Biden iyo ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa ku dhawaaqay waxa ay ugu yeereen iskaashi cusub oo u dhexeeya Maraykanka iyo UK kadib markii ay wada hadal ku yeesheen aqalka cad ee Maraykanka looga arrimiyo. warkiisu waxnimana waa nageynta xasan. aad baad u mahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa cabdulqaadir yuusuf cali oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da. dhegaystayaal haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, aynu ku bilownay sidii warka caalamkaba aad ku maqlayseen malaayiin qof oo ku nool waqooyiga Amerika ayaa lagula talinayaa in ay xirtaan maaskaro markaasi heerkiisu uu sarreeyo marka ay bannaanka u baxayaan sababa la xidhiira wasaqowga hawada ee ka dhashay dabka xooggan ee ka holcaya kaymaha Kanada. duulimaadyadii ayaa la hakiyey qaar ka mid ah garoomada waaweyn ee diyaaradaha ee Maraykanka qiiq dartii. dowladda Kanada ayaana sheegtay in ku dhowaad 100 milyan oo qof oo ku nool Maraykanka iyo Kanada ay hadda la kulmayaan saamaynta wasaqowga hawada. magaalooyinka Maraykanka ee saamaynta wasaqowga uu gaaray waxaa ka mid ah magaalada New York iyo magaalooyin kale. haddaba wararka arrinta la xiriira waxaa iiga waramay Cilmi Maxamed Waare oo ah wariye degan magaalada Indiana ee dalka Maraykanka. aad u mahadsantahay xasan. horta dabkan ka holcaya ama kaymahan ka gubanaya bariga dalka Canada si weyn ayaa dhulka Maraykanka looga dareemayaa. ilaa iyo 16 gobol oo ka mid ah gobollada Maraykanka oo dhinaca xadka ku taadsan haba ugu darnaadaan kuwa ku dhow sida gobollada Massachusetts, Ohio, New York, Philadelphia, Michigan. gobolladaas waxa ugu darnaadeen, laakiin ilaa iyo 16 gobol oo ka mid ah gobollada Maraykanka ayaa laga dareemayaa wasaqowga hawada, iyadoo weliba gobolka New York iyo gobollo ay ka mid yihiin Philadelphia, Michigan iyo Ohio iskuuladii la fasaxay labadii maalmood la soo dhaafay, dadkuna ay maaskaraati xiranayeen maadaama hawadu ay heerkii wasaqowga xitaa ay dhaaftay oo ay sababtay in dadka lagu amro xitaa guryahooda inay joogaan oo aysan shaqo aadin. sababtuna waxay tahay isbitaaladii ayaa waxaa ku batay dadka xanuunkaasi uu soo ridanaya, gaar ahaan dadka indhihii cuncunayaan, dhuuntii cuncunayso, gaar ahaan dadka cudurrada qaba sida sambabada ama neefta qaba oo kale, in ay arrintan dhibaato weyn ku ahayd. marka sidaa darteed digniin ayaa la siinayay dadka oo ku aadanayd in ay dadku joojiyaan dhaqdhaqaaqa oo guryahooda ay ku jiraan. cilmi, marka haddii aad sawir ka bixiso qiiqaasi ka dhashay dabka ka holcaya qaybo ka mid a dalka Kanada ee soo gaaray gobollada Maraykanka, sida uu ekaysiiyey hawada? xasan, maba arkaysidba dhismayaashii dheerdheeraa ee ku yilay magaalada New York iyo magaalooyinka waaweyn ma ku muuqanayaan. waxaad u malaynaysaa in qiic
iyo sidoo kale waxyaabo inay holac isugu jiraan aad u malaysid oo dhul cirkii dhan wuxuu noqday gaduud xigeen marka sidaa darteed maba aqoonsanaysidba magaaladii xitaa waxay sababtay eeraboorro waaweyn oo eeraboorka LaGuardia oo New York ku yaalla iyo ka New Jersey ku yaalla shalay in wax diyaarada aysan ka duulin islamarkaana aysan ka soo degin taasi oo micnaheedu tahay feasibility-ga ama araggii xitaa baylodadu inay awoodi waayeen inay arkaan eeraboorkii si ay u degaan amaba ay u duulaan taasina waxay muuqanaysaa magaalada New York oo kale in gudoomiyaha gobolka iyo duqa magaaladu ay yiraahdeen weligeen maana arkin taariikhda hawada oo sidan u wasaqowda marka waa meeshii ugu sarreysay ayay gaartay ilaa iyo 300 cabirka lagu qiyaaso wasaqowga hawada ilaa iyo 50 ayaa caadi ah marka 300 ayay kor u dhaaftay marka xasan waxa la isdhihi karaa waa wasaqowgii ugu ballaarnaa xitaa waanu aragnay kaymaha Mareykanka oo gubanaya 2 sano u dambeysay xitaa wasaqowga noocaasi ah lama arkin ma garan digniinta marka dawladdu ay dirayso marka laga yimaado kooxaha caafimaadka ama dhaqaatiirtu iyagu maxay leeyihiin dadka maxay u sheegayaan waa lala talinayaa dadka waxaa la leeyahay haddii aad bannaanka u baxayso waa inaad maaskaraati qaadataa xitaa ma ahan maaskaraatiyada caadiga xilliga covidka la qaadan jiray waxaa jira kuwo kale oo loogu talagalay oo filters leh waxyaaba hawada kuu filtraynaya markaad adigu neefsanayso dadka kuwaasi ayaa lagula talinaya haddii aadan heli karinna guryahaada joog ayaa la dhahaya dhaqaatiirtu waxay leeyihiin isbitaalada dadka wasaqowgaasi hawada dadka xanuunada ka dhashay oo isbitaalada soo booqanayo waa ay kordheenayay dhaqaatiirta qaarkood ay leeyihiin gaar ahaan meelaha uu qiicu sida xooggan u soo gaaray oo hawadu ay ku wasaqoobayso dawladdu ma jiraan marka tallaabooyin ay qaaday ilaa iyo hadda oo arrintan wax looga qabanayo dowladda horta marka hore tallaabo waxay qaaday in ay ka qayb qaadato dowladda Mareykanka sidii dabkaasi loo damin lahaa ilaa iyo 600 oo shaqaalaha dabdamiska oo diyaarado ay la socdaan isla markaana gawaarida kale oo dabdamiska oo biyaha xooggan tuuray la socdaan ay waddanka Canada u dirtay gobolada sida ba'an uu u saameeyayna waxay dowladdu dadku ugu baaqaysaa in ay haddii aysan laga maarmaan ahayn ay gurigooda ku jiraan isla markaana xitaa filtrada ama air conditionada ay shitaan daaqadahana aysan furin erdahoodana aysan ballaqin maadaama hadda xilligii samarka oo xilligii kuleylka lagu jiro in hawadiina ay wasaq tahay bannaankiina uu kuleyl yahay sidaa darteed dowladdu waxay dadka kula talin in guryaha ay ku jiraan oo indoors ahaadaan oo outdoorka iska dhaafaan ama inay bannaanka u baxaan cilmigooda aad u soo koobay marka haddii arrintan hadda sii taagnaato oo wasaqowga hawada uu sii socdo maxaa walwal ah oo la muujinaya oo dawladdu ka hadasha arrimaha walwalku waa jiraa waa xasan sida muuqata iskuuladii ayaa fasaxan shaqooyinkii dadkii ma aadi karaan xilli kuleyl ayaa lagu jiraa oo dadku inta badan ay jeclaayeen inay bannaanka ama ay ku aalamiitayaan ama ay ku lugeeyaan oo dadkii waxaa la yidhi guryihiina ku jira marka mar kastaba to dowladdu waxa ay ku dadaalaysaa sidii dabkaasi loo damin lahaa islamarkaana noloshu ay caadi ugu soo laaban lahayd gobollada ay sida ba'an ay uu dabkan ama hawadan wasaqowga u saameeyey kaasi wuxuu ahaa cilmi maxamed waare oo ah wariye degan magaalada Indiana ee dalka Mareykanka oo ka mid ah magaalooyinka laga dareemayo arrinta la xiriirta wasaqowga hawada oo iga warramay xaaladihii ugu dambeeyay oo kaasi ahaa qoysas ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo dib u dejin ka helay dalalka galbeedka ayaa ka cabanaya in hanaankii ay ku bixi lahaayeen laga horjoogsaday kadib markii la sheegay in diiwaanka qaxootiga uu muujinayo in dadkaasi beri hore ay ku noqdeen Soomaaliya dadka ay arrintaas saamaysay oo qaarkood la soo xiriiray BBC-da ayaa beeniyey in si khiyaarkood ah ay dib ugu noqdeen Soomaaliya waxaana ay ku doodeen in weligood aanay ka bixin xeryaha Dadaab waxaa dadkaasi ka mid ah Axmed Cabdulaahi oo u warramay Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin waxaan ahayn dad qaxootiga Dadaab ku jira oo wadamada dibadda ka helay dib u dejin oo processkoodu dhammaaday markii ay diyaaradda raaci lahaayeen la joojiyey baan nahay sidee laydin joojiyey waxaa lanagu yidhi waxaad aadeen Soomaaliya oo repatriation baad qorateen sidaa darteed waddanka Kenya ma joogtaan waa gartay mar waxaad tiri dad waxaan nahay ay u dhammaatay habkii iyo nidaamkii loo raacayay in dib loogu dejiyo waddamo kale oo saddexaad haddana waxaad leedahay waxaa naloo diiday inaan dhoofno marka yaa idin diidan yaase marka hore idin yidhi nidaamkiinu waa dhammaaday oo dibdejintiinu waa diyaar
dibudejintanadu inay diyaar tahay waxaan kala soconnay oo noo sheegay safaaradihiina siiyey resettlementiga IOM intuba way noo sheegeen. yaa marka idin diidan oo culayska xagee ku jira? aniga haddaan iska soo qaado 6 qof baa layla joojiyey. dhadhaab taarikh 8 January baan ka bixi lahayn. taarikh 16 IOM ta annaga oo ku marayna caafimaadka intii u dambeysay jakinkii yaa qofkii IOM falayga u qaabishanaaba yaa layskana weeriyay 5 ruux oo kale iyo aniga 60 qof iyo wuxuu noo sheegay in email loo soo diray xagga dawladda ka socda. emailkaas oo la leeyahay dadkani qaxootiga ma oo way guureen oo Soomaaliya ay repatriation ugu qorteen. emailkii sidaas la noogu sheegay. sidaa darteedna IOM waxay noo sheegtay inayna awoodin inay sii wado falayganaga. marka hore maadaama nidaamkiinaba ay IOM waday maxaa keenay in marka ugu dambaysa ay tiraahdo dadkani dad wadanka degan maahna dad guuray waaye? arrintaas qabadsi. arrintaasi waa arrin aan qiil lahayn oo musiibo ah oo nagu dhacday weeye. mana garanayno dan ay ka lahaayeen dadkii waxaa ka dambeeyey. annagu dad qaxooti ah oon meel dhadhaab uga bixin baan ahayn. broseeskanaguna qaxooti aan nahay buu ku socday. haddaan qaxooti ahayn broseeskanagu ma socdeen. brosees aad u dheer oo intaasoo sano aan soo marray. dukumentiganagii oo dhan baa la hayay. waxaan filanaynayba ma ahayn. meeqa qoys ayaa tihiin dadka arrintaasi ay saamaysay? aniga kolley dad badan waan ogahay laakiin waxaa lagu qiyaasaa 100 qoys iyo ka badan. siduu MB-ga deegaanka laga soo doortay Faarax Macalin uu maalin carabkiisa ku dhuftay dadku 100 qoys weeye iyo ka badanba. adigu laakiin inta aad aragtay ee kula joogta xerada aad degan tahay ilaa meeqa qoys waa? ilaa waxaan ku qiyaasi karaa dhowr iyo 10 qoys oo qoysas waaweyna iyo dad badan oo guruufays Canada ahaa oo iyaguna maxay ahayd ay dhowr iyo 10 koodii kala ilaa 14 qof waan xasuustaa. bal haddii aad cadayso cidda si gaara markaasi u diidan oo soo sheegtay inaad dib ugu guurteen Soomaaliya waa cidee? annaga sidaad og tahay walaalow qaxootiga waxaa maamula hay'ad la yiraahdo raas baa maamusha wixii arrimaha qaxootiga ah. marka raasna waa dawladdii. marka waxa dhibaatadu ka dhalatay markii eedayntaasoo wada socotay exit baamkii dalka bixi oo noo diidaa yaa kulmay. adigu xagee u socoto deganaansho ka heshay? anigu Canada. goorma ahayd inaad baxdo? waxay ahayd inaan baxo January taarikh 26. ilaa hadda marka ma isku daydeen inaad xiriir la samaysaan hay'adda qaxootiga iyo hay'adaha kale ee UN-ka ee gacanta idinku haya oo xaaladiina aad kaga warantaan? waan la kulannay meel walba waan tagnay. qof walba wuxuu leeyahay maxay ahayd arrintan waan ka xunnahay waanan maxay ahayd idin kala qayb qaadanaynaa. marna ma ka baxdeen Kenya oo wadankii Soomaaliya dib ugu laabateen? maya walaal aniga iska warrama oo anigu baa kulli iska warrama. aniguna maana ka bixin xitaa meel repatriation lagu qorayo ma tegin. qof repatriation u goray xitaa maana sagootin. dadka qaar waxaa ku jira caafimaad ahaan wadanka gudihiisa waxba looga qaban waayo resettlement laga siiyey Canada iyo Mareykan baa ku jiray. dadkii caafimaadka loo raadsanayay dad wadnuhu xanuunayo dad madaxa maxay ahayd burooyinka ka taal oo dalkan Kenya waxba laga qaban waayo baa dadka ku jira. dadkii noocaas ahaa rajaynayay inay mar uun xanuunkoodan caafimaad u helaan way waayeen. yacni rajadoodii way waayeen. marka maxaad samaynaysaan hadda maadaama xaaladiina sidaasi ay tahay? inaan isxalina annagu ma awoodno. waxaan codsanaynaa cid kasta oo ay khusayso dhibaatada annaga nagu dhacday oo bini'aadanimo noo caawinaysa in lana caawiyo baanu codsanaynaa. kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdulaahi oo u waramayay Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin. sida uu wareysigaasi ku sheegay Axmed, xildhibaanka baarlamaanka Kenya ku matala deegaanka Dhadhaab Faarax Macalin ayaa ku howlan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada soo wajahday dadkaasi sugaya in ay u duulaan wadamada dib u dejinta siiyey. isla Saalimiin ayuu u waramay. way jirtaa in meesha uu khalad ka dhacay oo dad dhoofi ahaa oo dibadaha resettlement ka helay ay database-ka UN-ka uu tusayo iyo maxay ahayd IOM-ta in ay voluntary repatriation-kii hore oo Soomaaliya ninka raba inuu u noqdo wadankii ay asal u ahaayeen gunana la siiyey loo ogolaaday inay dib ugu noqdaan. marka database-ka ayaa taa tusaya reflection-kaa sameeyey. waan dhex qaadnay waanu ka hadalnay warkii uu inta badanaa say iyaga u sheegayeen buu noqday. marka waanu ku dhex jirnaa. waxaan isleeyahay waqtiga ugu degdegsanya badan waa lasii daan doonaa wayna tegi doonaan sife ay meelihii maaragtay laga ogolaaday inay resettlement ku sameeyaan ay u degaan. laakiin khaladka wuu dhacay. anisuu ku dhacay iyo wixii ka dambeeyey ma garanayay laakiin way dhacday dad weli xeryaha ku jiro in maaragtay information khaldan oo la keenay oo tusaya inay dib ugu noqdeen Soomaaliya oo
qoysaska doonaya inay Soomaaliya dib ugu noqdaan lacag gunnaa la siinayay si ay xagga ugu noqdaan oo iyaga ay xagga u degaan marka taas ayaad moodaa inay khaladkaas dhacay laakiin waa ku dhex jiraa aad baan ugu dhex jiraa marka ayaa is leedahay qaladaadkaasi ma xagga computerka wax ka dhacay miyaa mise wax ku talagalada is leedahay wax kasta iska dhici karaa ma garanaya aniga meelay ka imaatay waxaan hadda aan caddayn u hayo ma jirto laakiin dee wax kastaa dhici karaa inay fasaad uu iska jiray oo dad maaragtay gunnadii yaraa oo loogu talagalay iyagoo og inay meesha joogaan sitay u xalaashadaan u tusayna waa suurtagal inay khalad iska dhacay oo ay iska tahay innocent mistakena waa suurtagal laakiin waxay tahay baa wax maaragtay salkeedaan gaari doona marka taasaa muhiimadda taasaa wax kasta ka muhiim ilaa iyo hadda marka intaad xiriirka la samaysay xaaladooda bal ka waran sidee loogu jiraa waa la baaray in badan baa la helay in baaba tageen oo iska tageen oo maaragtay lasii daayey markii lasii baaray oo la ogaaday inay ayan hadda ka hor meel kale aanan repatriation u samaynin kuwa hadda maaragtay cilladaha haysatana waan xaaladooda aad baan uga warhayaa waana ku dhex jiraa in lasii daaya inta hadhayna waan rajaynana insha allah sida ugu degdegsiya badan dadkay khusaynaysay baan kala hadalnay baaritaankaasaan la wadaa caddayntan badanaa waa la hayaa wayna iska dhamaan doontaa waan ku sida ugu degdegsiya badan kaasi wuxuu ahaa xildhibaanka deegaanka dhadhaab ee ku matala baarlamaanka dalkani Kenya Faarax Macalin oo u waramayay aadan maxamed cabdi saalimiin ayuu qadka telefoonka ugu warramayay qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da ayaa aragtidooda dhanka Facebook qodobka kaga soo dhiibtay Cabdinaasir Mudasir Sheekh oo jooga Jigjiga waxa uu leeyahay qoysas muddo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab oo dib u dejin ka helay dalalka galbeedka oo hadda ka cabanaya in laga hor istaagay bixitaankooda runtii ma aysan ahayn in laga hor istaago dadka qaxootiga ah ee dib u dejinta ka helay wadamada caalamka waa in wax loo qabtaa sida ugu dhaqsiyaha badan xalna loogu raadiya ayuu leeyahay dowladda Kenya ay ugu raadisaa dhegeysto kale oo isna aragtidiisa ka soo dhiibtay waa Cabdulqaadir Ibrahim Koonfur Afrika ayuu joogaa waxa uu leeyahay qoysaska ku jira xeryaha dhadhaab ee Kenya ee laga hor istaagay bixitaankooda waxa ay dareemayaan dulmi waa in la fasaxa ayuu leeyahay way mahadsan yihiin waa qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da oo dhanka Facebook aragtidooda nagu soo gaarsiiyay welina halka aad naga dhegeysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba inta badan shacabka beledweyne ayaa ku dhowaad bil kadib magaalada dib ugu noqday kadib markii ay gureen biyihii ka saaray guryahooda dadka deegaanka ayaa ku waramaya in burbur xoogan ay fatahaadu u geysatay magaalada islamarkaana laga cabsi qabo in xanuuno ay ka dilaacaan halka beledweyne oo uu maro webiga Shabeelle ayaa u nugul fatahaada waxaana dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ka dhacay barakac baahsan haddaba macalin cali cabdi xasan cali baari oo bare ka ah dugsi sare oo ku yaala beledweyne ayaa waxa uu ka mid yahay dadka haata ku soo laabtay guryahooda wariyaha BBC-da Saxnuun Axmed ayuu uga waramay xaaladda magaalada iyo saameynta oo barakacu ku yeeshay waxbarashadooda dadkii marka horeba waxay ku guureen qarash aad u fara badan magaaladan oo intaa dadu degan yahay haddii mar la yidhaahdo waa la qaxayaa gaadiidka qaali buu noqonayaa marka dadkii qarashay ku guureen haddana markay magaaladii biyihii ka baxeen 70% aan dhihi karaa markay soo laabanayeen ayagana qarash fara badan haddana ku baxayo dadkii aysan awoodin sababtoo ah dadka ma aha dad lacag haysta ama kayd hore culaysyo fara badan dadkii soo wajahay markay magaalada ku soo noqonayeen marka hadda waa sidee nolosha iyo adeega bulsho ee magaaladu dadku ma heleen waxyaabihii daruuriga ahaa ee ay u baahnaayeen may dadka ma helin dadkii waxay ku soo laabteen guryihii oo musqulihii dumeen guryihii dhoobada ahaa ay biyihii qaadeen oo jingadihii iyo guryihii oo isku dudunsan kanaaco ka dhalatay iyo lacabo nadiifa aan lahayn dhiiqa ah ayay dadkii iskaga soo noqdeen dhibaatooyin badana dadka meesha ku haysta ama ay la kulmeenba sida aad sheegtay guryihii oo dhiiqa ay dhex taallo oo weli aysan ka qalalin marka lagu soo noqday dadku sidee bay ugu suuro gashay halkaas inay deegaansadaan meeshaasi waxaa ka jirta kolley oon dadku qorax ay marka horeba taagnaayeen ee maaragta meesha ay u qaxeen gabaad fiican ma lahayn haddana hadday dib ugu soo noqdeen kii bannaanka ku haystee mid lamid ayay la kulmeen dadku adiga qudhaad waxaad ka mid tahay dadka ka barakacay magaalada markii ay fatahaaduhu bilowdeen bal nooga sheekee gurigaagii marka aad ku soo noqotay sidee xaal ahaa guryaha markii lagu soo noqday gurigayga ama guryaha kaleba intaba wuxuu ahaa guri ay biyo soo galeen ay musqulihii qaarkood ay ka dudumeen
guryo ma garatay isku dhex yaacsan jiingadii ay qaarkood biyihii qaadeen guriga soodintiisa iyo xataa jiingadihii guryihii diriska ahaa isku dardarsameen la kala garanaynin. maxaad samaysay markaad xaaladaas ugu timid hoygaagii? wixii markaasi karaankaaga ay kugu aadan noloshaada aad kusoo qaadi kartid baa la samaynayaa. marka nin waliba taagtiisa qodax ugu tagtaa baa la yidhi. marka dee nin waliba oon sidii markaasi la quman oo nolosha oon dib ugu soo noqon karo noloshii caadiga ahayd unbuu samaynayaa. ganacsiga isaga ka waran, ma hesheen dukaamo aad ka adeegataan markii aad soo laabateen? wallaahi dukaamanka waa la helayaa walow ay qaali tahay. dadka bara kacayna ma aha, dadkan magaalada keliya degan ma aha. gobolka intaas baaxadiisa la eg webiga Shabeelle ku hareeraysan oo dhan dhibaatada way gaarsiisan tahay. walow magaalada Beledweyne ay ugu sii badan tahayba. qudaartii oo dhan baa la waayey. reerkii maaragtay $1 ama $1 ku adeegi jiray qudaarta maanta $5 $6 kuma filno. raashinka waa qaali, nolosha aad iyo aad ay u kacsan tahay. marka dadku dhibaato badan ay qabaan. adigu macallin ayaa tahay waxbarashada iskuulaadka ka shaqeeya, bal waxaad iiga warantaa sidee idiin saameeyey qaxu adiga iyo shaqadaadii iyo ardadii aad macallinka u ahayd iyo iskuuladii hadda markaad soo laabateen siduu xal yahay? bal ka sheekee. anaga ka waxbarasho ahaan bahda waxbarashada waa midda aan tilmaami karo keliya oo ma garatay hadda aan ka shaqeeyo annagoo isku diyaarinayno imtixaankii oo naqliga sanad dugsiyeedka inaan qaadno ayaa hal habeen ay maaragtay biyihii soo fataheen. imtixaankii oo diyaarsan, ardadii oo diyaarsan. dee ardadii way qaxeen oo ma garatay guryahoodii biyaha soo galay. ardadoo kaleo hadda manhajkii ama buwaagtii iyo qalabkii waxbarashada iyo agabkii idil dad qaxay waad garanaysaa. qaar biyaha qaadeen iyo qaar kala lumay. imtixaankii qaranka kolley waana dhaafay. dabcan oon kulle inaan dib loo qaadi doono insha allahu tacaala waan ka rajaynaynaa madaxda qaranka. goobihii waxbarashada waa biyaha soo galay. kuraastii iyo agabkii iyo kiidadkii iyo qalabkii iskuulo badan ay biyihii galeen ay waxyeeleeyeen. qalabka lama wada qaadi karo. maadaama aad ahayd macallin oo inta aan biyo baxada ama fatahaaddu aysan soo gaarin magaalada si xiriira u shaqaysan jirtay, bal ka waran gunnadaadii macallinnimo ma heshay inta aad qaxa ku maqneed mise way kaa go'day? waan helnay. hadda wax go-ay ma jiraan oo waktiga aan maqnayn baaba iska wakti yar ah. marka alxamdulilahi gunnadii waan helnay oo hadda ninkii hadda hay-ad ay bixinaysay iyo ninkii ardada lacagta laga qaado kulley lagu fankari jirayba hadda taasi dhib kama taagno oo muddada kooban iyo waktiga iska kooban. hadda wixii annaga ka macallin ahaan waan helno hadda waxaan wayna ma jirto. macallin cali cabdi xasan cali baarey oo ah bara sare oo ka tirsan dugsi ku yaala Beledweyne ayuu ahaa kaasi oo u waramayay Saxnuun Axmed. markana barasaabka Ukraine u qaabilsan gobolka Kherson ayaa sheegay in dhul baaxadiisu ay tahay 600 oo kiiloomitir oo isku weer ah ay fadhiisteen biyaha ka fatahmay biyo xireenka Novakhavka. dhulkaasi oo intiisa badan la sheego inuu dhaco dhanka bidix ee webiga Dnipro aagaasi oo gacanta ku hayo Ruushka. xukuumadda Kiev iyo Moscow waa xukuumadaha Kiev iyo Moscow ayaa midda kale ku eedeynaya in ay burburisay biyo xireenka. hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya in dhulkan ay fatahaaddu saamaysay oo khatartiisa leeyahay maadaama uu markaasi miisaan yahay ama uu yahay dhul culus oo buuro leh. James Whitehouse ayaa warbixintan ka diyaariyey. aadan saalimiin ayaa soo jeedinaya. dhanka bari ee webiga Dnipro haatan waa dhul aanay cidina ka talin. midkoodna Russia iyo Ukraine ma ay maamulaan halkan. haatanna cidi kuma noolaan karto. diyaarad drona oo ay leeyihiin ciidamada Ukraine ayaa aragtay qoys iyaga oo ku go'doosan gurigooda. waxay isku dayeen inay biyaha ka soo saaraan. wiilkooda Maxim ayaa qaaday muuqaal muhiima. labadoodaba waxaa loo qaaday isaga iyo hooyadii oo ay wehliso gabadheeda magaalada Kherson. magaalo uu Ruushku mar qabsaday kadibna Ukraine ay xoraysay oo markii ay halkaasi gaartayna jilbaha ayay dhulka dhigatay. waxaan ku guulaysanay in aan helno doontii ugu fududayd, laakiin aabbahay iyo deriska ayaa lagu qaaday. way furfurantay haatan. biyuhuna maantay aad bay uga xoog badan yihiin sidii shalay. doontu waxba ma aysan tarin. marka waxaa la iiga tegay carruurtii 3deenna habeenkaas. waxaan dareemayaa inaan ku noolnahay nolol buuxda hal maalin. waxaan aad ugu mahadcelinayaa qof waliba. waddadan oo mar ahayd mid aan dhibaato lahayn haatan waxa ay marin u tahay samata bixinta. marka dadka laga soo samata bixiyo waddooyinka biyuhu ay qarqiyeen
gargaarka ayaa ah mid muhiim ah. si aad ugu gudubto waddooyinka waxa aad u baahan tahay mid ka mida doomaha yaryar. aamusnaanta ayaa ka turjumaysa dadkii magaaladan degganaa inay qaxeen. biyaha ayaa gaaraya ilaa iyo madaxaada. geedaha ayay dhammaantood biyuhu qariyeen. kooxaha gurmadka ayaa isku dayaya si ay dadka u caawiyaan. waxaadna arki kartaa sida ay u xayiran yihiin. biyuhuna waa kuwa baaxad weyn oo badan. Kherson wax kastoo ay soo martay waa magaalo jilbaha dhulka ku haysa. duqayntu waa wax caadi ka ah oo ka dhaca Kherson. ruushka waxaa laga yaabaa inay ka baxeen laakiin weligood ma fogaan. waxay u baahan tahay wax badan in dadka deegaanka lagu qasbo inay halkan ka baxaan. madaxweyne Zelensky ayaa waxa uu dhaleeceeyey sida ay caalamku uga jawaabeen waxa dhacay, isagoo ku eedeeyey qaramada midoobay iyo laanqeyrta cas inaanay halkan joogin. qof kasta oo halkaasi ku dhinta waxaa lagu eedayn doonaa haykalka caalamiga ah ee jira iyo hay-adaha caalamiga ah oo bilaabay inay naf badbaadiyaan. haddii aanay hadda hay'adi ku sugnayn goobtan masiibadu ka dhacday, markaa ma aha wax jira, awoodna uma laha inay ka shaqeeyaan. waxaan samaynay dhammaan codsiyada arrintaasi khuseeya. 2 maalmood gudahood halkan Kherson waxaa qayb ahaan qariyey webiga Dnipro. daadadka ayaa aad ugu daran jiinka bari ee webiga, qaybo ka mida Ukraine, laakiin waxaa gacanta ku haya Ruushka. waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo lagu burburinayo biyo-xireenka Kakhof. waxa ay ka dhigaysaa weerar kasta oo Ukraine halkan ay ka qaado mid adag. kuwa halkan ku noolna dhibkii ay ka soo gudbeen waxa ay madaxa la sii galeen dhib kale. aadan maxamed cabdi saalimiin oo warbixintaasi soo jeedinayay waa uu mahadsan yahay. markaana dhegaystayaal, haddii aynu egno wararka ciyaaraha berri oo sabti ah, waxaa jirta ciyaar adag oo u dhexaysa ama ah ciyaarta kama dambaysta ee Champions League ee u dhexaysa kooxaha Man City iyo Inter Milan oo iyadu dhowr jeer oo hore ku soo guuleysatay koobkan. waxaana ay ka hortagaysaa Man City oo aan weligeed ku guuleysan koobkan, isla markaana hadda ku haminaysa in ay noqoto kooxda ku guuleysata. ciyaartaasi waxa ay dhacaysaa 10 habeenimo xilliga bariga Afrika. guud ahaan idaacaddii subaxnimo waa naga inta. haddii Allah wada la yiraahdo dhegeystayaal, waxaa noo balana 5 galabnimo. sidaa iyo nabadgelyo inta ka horeysa.